marka hore waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan rabo inaan idinla wadaago dareenkayga oo aan soo dhaweynayaa kuna bogaadinayaa go'aankii gobonimada lahaa iyo geesinimada oo shalay mudane prime minister Roble iyo golihiisa ay ka gaareen qadiyad soo jireen ahayd oo golihii wasiirada aniga iyo wasiir Juxa oo yak fadhiya iyo wasiir Omar aan ka wada tirsaneen kaasoo go'aan gunnimo leh oo yani wax aad looga xumaado ah oo wax horay u dhacay taariikhda Soomaaliyeed aan ahayn waxaan fadhinay meeshii lagu go'aamiyay maalinkaas in nin halgamaa oo haliyay ah oo ciidankii Soomaaliyeed ka tirsanaa oo u soo halgamay dhulkii naga maqnaa 77 iyo 83 84 dagaaladii ka soo qayb galay maalintaas in lagu suntay inuu yahay argagixiso jabhadii ama ururkii ONLF oo ahaa wixii yaraa oo ka haray barajadii Soomaalida kulay annaga aragtadeen iyo sideena ku soo barbaariyay in jabhadii ayada ahayd in maxay ahayd lagu suntay inay tahay urur argagixiso maalintaas aad baan uga xumaanay dareenkeennana waa ka muujinay maalintii ayada ahayd de wax laga aamusi karana ma ay ahayn sababtoo ah oo NLF caalamkoo dhan baa xafiisyo uga furnaa bal Soomaalidii kula dhalatay ha ku dhahdo argagixiso waxay ahayd laba geeriyaad marka taas waxay ahayd maalin madow laakiinse waxa istaagay oo ka dhiidhiyay shacabkii Soomaaliyeed oo dhan meel walba joogeen meel walba caalamka ka joogeen sidaas la eg waxa ka dhiidhiyay barlamaankii oo uu hogaaminayay mudane Jawaari oo iyagana kaalin fiican ka qaatay aniga aada uga xumaaday yani qalbi dhagax wuxuu ahaa nin aflibaax ku dhacay isma lahayn qalbi dhagax baa soo bixi doona ONLFna waxay ku sugnayd waa wada ogeyn oo iska itaal darneyd laakiin waxay ahay xaq u dirir xaqana sidiisaba hadii la daba taagan yahay mar unbuu mira dhalaan marka adduunka marka laga taga muslimnimo iyo Soomaalinimada laga taga caalamka waxaa jira xeerar qofka haduu isu dhiibo dawlad qaxootinimo ka dalbada international human rights law iyo marka la cuskanayo meel laga cabsanayo in lagu dhibaateeyo deportation loo sameyn karo macnaha dadkii qaxootiga oo xataa wadankoodii aan joogin baa waxa leey wadankaas uma celin kartaan hadaad u celisaan dhib baa ka soo gaaray marka de halgamaa Soomaaliyeed baa la yiri TPLF gacanta loo gali kuwii uu la diriiray wax qurux badan ma ayna ahayn waa aad baan u niyad jabnay laakiin mar walba qalbiga daaqilka waxaan ka dareemay kullay Ilaahay inuu iska maqneen inuu Ilaahay waxa uu jeedo Ilaahayna xal keeni doono wixiiba wax ka dhow sanad kadib mise gudihiisa Itoobiyadii baa isbedel ka dhacay Ilaahay wuxuu xugmiyay ONLFti annaga argagixisada aan ku saxiixnay in liiskii laga saaray oo loo aqoonsaday inay ka soo qayb gasho ama xisbi ha noqoto ama siday doonto laakiin yani ONLF in laga saaray liiskii mar hadii laga saarayna de qalbi dhagaxna waa la soo daayay يعني waxay ahayd fiir ilaahi cilmigiisa qeybka ah ma naqaano maalintiisaas u madoobay maalintan kala noo bedeshay aanu qalbi dhagax sidii loo soo daayay hal mar ban la kulmay لانه كيسكا ما اهن قلبي دغح وقضيت ودل ودد هذا سياسات هذا isbedeli karta oo waxa la dhihi karaa si silmi ah ba wax lagu raadinayo laakiin anaga waagi aan yar yareen iyo wixina lagu soo barbaariyay dhulkaas iyo dhulka kale oo naga maqnaa waxay ahayd wixii aan aaminsaneen dhul naga maqan iyo dad Soomaaliyeed qofka Soomaaliga ahna meel walba caalamka ka joogo okay shantaan la leeyahay waa shan Soomaali ila kala qaybiyay hal Soomaali aan aragnay
marka walilaahi alxamdu horta qalbi dhagax waa la soo daayay waxa kale aad aan oga xumaanay qalbi dhagax dambiilanimo lagu sheegay anigu wixii aan weydiiyay waxa ka xitaa haduu dambiil yahay in case Soomaaliya waxay leedahay xeerka ciqaabta la dhaho qofka dambiilaha kaas waa lagu qaadi karaa maalintii waxaan ku barnaamijka xataa tiirka iskoola bulshada laakiin maxaa loo dhiibayaa taasna waxay ahayd ma ogtahay wax marka ma aha kayska qalbi dhagax waa qof kumankum baa u dhimata qadiyada dhiig u daadisay kuwa jeelasha maqasana ku jiray asaga qadiyadaas buu qayb ka ahaa waana qadiyad soo jirtay oo annagana aan aaminsanayn marka alxamdulillah marxaladaas waa ku faraxnay waa la soo daayay waa laga saaray Etoobiyadii way ictiraaftay waxbay soo socotay haddana waatana marxalad kale oo tii ka sii farxad badan li'anno golihii wasiirada maanta because barmadow bay ahayd inkastoo baarlamaankii hadlay Soomaaliya oo dhan hadashay laakiin kabinetkii oo warkii uu ka soo baxay in warkaas la bedelo uu qurux badnaa ilaahay wuxuu kasay in prime minister Roble maadaha ka gaadho isaga iyo kabinetkiisa oo uga mahadnaqaya go'aan dhaxalgal ah inay qaateen waa ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa wabillahi tawfiiq